cigaalow in yaran ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeediiyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdo ayaraysa ilowda tii alle aragtaa allaaweyn ninkii aamina abuud leh ummad weliba ayaheeda inay garato iyadaa leh waan ognahay war Soomaaliland ayaheeda iyada ka tashanaysa ay kala tashanaysana malaha war kaale goormuu qowdhan ku nafsaday ninka duulaya kismaayo doonaya waa inaad xamar ma tahay maskaxda laga abaaroobi war horta waa hadashaane dad isdiiday dana kala wadaa leeyid maamaada ku dhaliniyo waxay ahayd ibni aadan iswaayi arrinaa kala geysi war hooy maamaha saas maaha ku dheelin shabaakadii la xiri laasin waa la furaa war maahmaadiin ku dheelena lamidii isjeelisad jooska daraa leeri war yaa tanoo kala arkay war warkayga dhex gelinina damaciyo markii doonistiyo diiftu soo badato daacaduna yaraataa ummadi dan isulaysaa waana shay duruuriya inay taas ku dirirta khayraaba afkaada ka soo dhadhamaayo kowdhe dariiqideed iyaa la furay maa ii tiiri shanfaroodana shabdhaha waa soo shabiha shariiqeede sinileed ku dirtay dableed ku shidhaa shaqada shuurkaaga waay shibnoode shaydaan buulo شرقا كرا شرقبا شيطان حجابا هذا ما معه سياس معها من بشار قاتي هو بشابت قونيه شكي ماله إنه لو شباب ولا شقيان وريا كلمان قبياقي إنده قيلو سومالي دا أقابنا اندونيسيانا أدينا أيها قيرار تريي ورين دا قيلو وقن عصده بينها كشيقين إنده قيلو معا مرنا ديري مرنا قابيي هلو يا إسقراب سادو كلي كلام قورتان وريني قيل maxaa siyaasadda faraha u geli war siyaasad ma gelina sheekada naga dhageysta eediya gashigii dhaca gashan qaad wuxuu dhibo haddaan odayo gooyoon ka garaaba soo bixin misna aan gudoon iyo aan garsoorayaal helin ama aan guurti loo dirin gartaas waayaha naqa warinda gele waxa u jawaabay maxamuud bacaalan in la yira oo ganacsadii gabdhaha wuxuu yahay aan garanayn laakiin kullu inda gele yaqaan gartii aan mariinkeed inta ay goori goortahay tala sami gobeed iyo hagarlii aan loo gelin armay gocasho reebtaa oo gadaal xumo abuurtaa war asagana nin galayr la yiraahdo ayaa ka dabageeyay war wax ma ogidiine galayrkii gaashaamo ayuu dad kale ku dilay war ciidankii Itoobiya ee militariga ayaa galayrkii loo soo kiciyaa la yiri war anigu nin galayr la yiraahdo sheegay naga suga warka war xal qayf galayr miya Soomaaliya heshiisku uga baxday war waaba dad maran war dadkan kala socda maxay yihiin baando berisamaadki sagaar galayr la yira waxa sameey jirtay warshadeennii Soomaaliya wargeed ha kula go iga koobi wuxuu yiri gafku wuu dhacaa ruuxii garaawshiyo ka baxshaa galiin baa abid soo gunaanada ninka godob intuu galay geedkana ka giige aan qiran gafkiisana gada loola wadi karo gabyaagu bal ii sheeg war gaaleydii ha gordo gorankasan goomaroytan geegiisan baasan geeda kiyaali unireedkiin goosani war waxa la yiri qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarku ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba laga guurihaye afaray gawaana lagu guuriyaya lagu guuriyaya warwar ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dawladdii mushaaraadkii Facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta anigii mushaar la bixiyay waxaan ku ogaaday wariyaal la dhaxad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yar oo dhahaya dawladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan oran loodhi dul yar dulmi kama dhamaado dudunina ciidi kama dhamaado nimayaanu dunida fool buuga weligay ma gelin adinku idiin furaya saaxiibayaal waxay tuura banaada gabay taageera soo tuuranka qornay fafaniga oo soo gaaray hariifa quudkan laba nac isku xijideen oo si loo fahmo warnimada war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya oo labadii maalmood la soo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxa la gudoonsiiyay bilada sanadlaha ee hogaaminta suuban loo yaqaano Konkaradiya war
bil meela ka agriyaysan la haytan asharkuna kiin dhiibni haka baho basahay iyo galad ay bilay haytay war madaxweyne warkaaga waxba kama fahmin ay dhigayso biladaas waxa kale la gudoonsiiyay Abiy Ahmed iyo siyaasi Farweeke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kala xabadiga ma galine madaxweynaha iyo farmaajo bilan naga gudoon labadii madaxweynaha ka horeysay waa la yaabatay shalay dhigeen marka qaylidoodii ma bilada ay keentay markay xilka hayeen asbuuqa qayli jire mugooda ha qaylshaan ama kii qaylilayn maxay namudayin warray waxa la yiri nin baa hadda ka hor ceel ku dhacay markaasuu geed allana oo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasuu wuu yiri allankow magan markay shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afayeenadii dawladda iyo dadkii hadli jiray qof yira waa la waayay marka dawladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesow magan gashay jeesow magan ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday oo idaacad kasta waxay oo yiri xildhibaanna shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dawladdu ku xayirtay Jubbaland warlanka hebeebsaday gaylada hebeebsaday daahir amiin jeesow jiray mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan saransoor usuuna ma aray shariifka raali gelinka biyay oo barajaasna hadka dari oo barajaasna hadka biyay gafkusan gafi koonfur galbeed baay bakol shireedi ah koobi ki waan runtii sada maandhow salaan cali jeelaan ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano warnimayow afhayeenkii hore maamul goboleedyada Cabdullaahi Sheekh Xasan oo si dadban dawladda u taageeraya oo aan u malaynay in gudoomiyaha gobolka Cumar Firshaw ka dhaxlayo wuxuu yiri Xasan Sheekh Waagu uu xiray dastuurka qodobka 20aad uu jiray hadduu shalay soo akhriyay anigu bariga u xiray ayaan akhriyay waana ka cafiyay maandhow Cabdullaahi Sheekh Xasan maduulada ka kor hadlay Cabdullaahi Sheekh Xasan may bahil ma amehe asharkii Xasan Sheekh si may banahay li joojiya banaan li jiifiya banaan Cabdullaahi Xasan wuxuu yiri jawaariya waagaasi waxaan weydiiyay dastuuran ahayn miya jira wuxuu igu jawaabo yiri waxyaabo kale oo ogeyn baa jira waana waxa uu hadda jawaari ku buxuu yiri Cabdullaahi Sheekh Xasan warnimayo saddexdii madaxweyne ee Jubbaland laba kamid ah silsiladeed isla qabatay waxayna dhaheen Sheekh Shariif inuu Kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiyo Kismaayo way ku habooneed bay yiraahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweyne ayuu wuxuu doonayay inuu mid u marqaati furo war wiligeey ma arkin laba madaxweyne oo shir jira isla qabanayo hal magaalo isla joogo waraanu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bugtahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganay war aniga xidigaaba iga yaabshay wuxuu yiri Sheekh Shariif waxaan u sheegayaa Kismaayo wax doorasho ah kama dhicin muga waa yaabe asigu soo madaxweyne ku noqday hadaan doorasho ka dhicin bariya faaraha xidig garanka ba war ma haysiine madaxweyne Farmaajo wuxuu Mareykanka uga qayb galay kuna looga hadlay arrimaha diinta oo Trump uu shir gudoomiye a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ma Trump baa diin hogaamiyay oo ambara diimi la karimay diimo badan yihiin dadku dhagaha abudaa ka jiraan anu waxaan la yaabanahay diinaha Trump shir gudoomiye diinta Fircoon ka ka eeba oo Trump waxa la yaaba markuu diinta ay faragasto 29 sano kadib waa markii uu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed la gudoonsiiyo bilad caalami ah taasoo ku mutaysto hogaamintiisa wanaagsan ra'iisul wasaaraha ku xigtay bilad maamul goboleedyada qaramada uu ku sii rabtay wariyaha ra'iisul wasaare Khayre hawsha uu ka qabtay galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeed nima ka daraaso war awowgii la gub Kismaayo ra'iisul wasaaraha waa laga taageeray war waxa la yiri dan kasta heshiis baan dabaqooyinka yaaliye khilaafaadka dhexdeena ku dhamaysanayna afka looga dhawaaqo dibna loo dhuganaynin oo halka looga dhaqaaqo dadku waa ka dhargeen dhamayna ay dawladda nabad ay ku dhaqnaato imisa dhibsanayso wax u sii dhimay barnaamij waxaan idin weydiinayaa ma taqaanay wasiirka raaligelinta isxafinta ee xukuumadda Soomaaliya wiilasheeni aan ahayna afiki yaraya warna waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dawladda bas wadaha dawladda ka wahay war wasiirad Khadiijo waa gabadha madasha war yaa maandaga nabadiina marka waradada nabad oo gol dadka dhina kara warya ee qasar lagu hadlayo mee qasar sharcigii shirkada dan lahaa أنا أقول له لأن فلان يروح يوريا أبو إذا أبو ورد دوغ كله دوغ كله ورد نبض وقت لا نسي وريا شرعي لاش